xogayaha umuraha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa tallaabo dhanka horumarka loo qaaday ku tilmaantay isbahaysiga ay sameysteen kooxaha mucaaradka ee kacdoonka ka wada gudaha dalka Syria ee iyagu ku kacsan nidaamka madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad. Mrs. Clinton oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia ayaa sheegtay in xukuumadda Washington ay si weyn u soo dhaweynayso isbahaysiga ay mucaaradku sameysteen waxayna ku baaqeen in lagu dadaalo si uusan u burburin wax khilaaf ahna uusan kaga imaanin isbahaysigaasi. laakiin Hillary Clinton ma aysan sheegin ictiraaf rasmi ah oo ay siiyeen kooxaha midoobay iyo xitaa taageero militari oo ay dowladda Mareykanka u hayso isbahaysiga ay sameysteen kooxaha kacdoonka ka wada gudaha dalka Syria. wadamo badan oo reer Yurub ah iyo dalal kale oo caalamka ah ayaa durba ku dhawaaqay inay kooxaha mucaaradka ah u aqoonsan yihiin maamulka rasmiga ah ee dalka Syria ka jira. dowladda Faransiiska ayaa kamid ah dalalka ku dhawaaqay inay aqoonsan yihiin isbahaysiga ay sameysteen kooxaha mucaaradka ah ee kacdoonka ka wada gudaha dalka Syria ee jeeda nidaamka madaxweyne Bashar al-Assad. gudaha daawadayaal inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka qaranka Soomaaliya oo aad kala socoteen stuudiyaha TV-ga qaranka uu ku leeyahay magaalada Nairobi. anigoo Zahra Maxamuud Korontaha ayaa daawadayaal warka idin la socotiinay aniga iyo dhammaan asxaabta warka igala qayb gashayba waxaan idin kaga tagaynaa hadii ay bidmo kulan dambe. halka aad ka daawanayseen waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV.